suuqa waheen ee magaalada Hargeysa oo nu kurgalnay habka ganacsi iyo dhaqdhaqaaqa suuqaasi gaar ahaan qaybta khudradda iyadoo oo hoos u dhac ballaaran ku yimid khudradda kala duwan ee suuqaasi ee dadweynuhu ka iibsadaan kadib markii ay joogsatay khudraddii ka soo gali jirtay wadamada jaarka tii dalka ka soo go'i jirtayna ay hoos u dhac ballaaran ku yimid waxaana ganacsatada yaryar ee ka ganacsata khudraddu ay ka codsadeen wasaaradda beeraha Somaliland sidii loo taakulayn lahaa loona garab istaagi lahaa beeralayda kala duwan ee dalka si wax soo saarka dhinaca dalagga uu soo baxo isla markaasina bulshada Somaliland iskugu filnaato waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka Iidaan ee khudradleeyda suuqa waheen ee magaalada Hargeysa maanta waynu isku filaan lahayn oo muxuu ahaayay hadii aynu beeraha wadankeena beerano oo aynu wax soo saarano oo aynu muxuu ahaayay ka maarano dawlad kasto wax inoo keenaysa waxa qurux badnaan lahayd iyada oo dawlad iyo shicib la iska kaashado waxaan lahaa wasaaradda beeraha in ay muxuu ahaayay laftigeedu ay ka hawl gasho oo siyaasad cad ay keento oo beeralayda ku maalgelinayso in lala kaashado muxuu ahaayay hay'adaha caalamiga iyo inagu isku tashano si aynu u helno maalgelin caalamiya oo xagga beeraha ah oo aynu wax soo saarno oo aynu ka maarno muxuu ahaayay dalalka dibadda wasaaradda beeraha iyo cid kasta oo muxuu ahaayay ku shaqo leh muxuu ahaayay wax soo saarka dalka waxaan ka codsan lahaa in la dhiirigeliyo oo muxuu ahaayay la maalgeliyo oo hoos loo eego oo muxuu ahaayay laga faa'iideysto dhulkeena waayo waxa mara dooxyadii biyiga rogmanaya badda ay ku darsamayaan biyi waxay ahayd in muxuu ahaayay biyaha la joojiyo oo biyo xidhan la sameeyo oo dooxyada laga faa'iideysto oo ceelasha laga faa'iideysto oo la iskaashado ayaa ka codsan lahaa cid kasta shacbi iyo dawlad u xanibnaan mayno muxuu ahaayay dal shisheeye qudaartiisa waxay noo qurux badan in aynu inagu muxuu ahaayay wax la soo baxno qaar ka mid ah ganacsatada khudradda ee suuqa waheen ee magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in beeralayda dalka Somaliland muujiyaan wax soo saar sidii dhinaca dalagga beeraha Somaliland kor ugu kici lahaa halkan waxaan uga dirayaa fariin shacabka reer Somaliland waxaynu arkaynaa suuqeena oo u xaniban khudrad la'aan ma yahayn inaynu xanibnaano khudrad la'aan waynu inagu wax beeranaa waynu inagu wax la soo baxnaa wadankeenu waa wadan hodan ah waa wadan dihin waa wadan hadii Ilaahay bidamkeeda leeyahay ay u baahan tacab waa wadan u baahan dadkiisa waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha in dadka la dhiirigeliyo beeraheenu wada banaan yihiin caws baa ka baxa ood baynu ku wareejinay waynu ilaalinaynaa waxa loo baahan yahay ummadaha kale iyo dunida kale waxaad arkaysaa waxa ama dhacdaba wadamo barafleeya oo aan haysanin cadceed aynu haysano oo aan haysanin lahawada aynu haysano oo aan haysanin ciid aynu haysano haddana si dhab ah wax u soo saara maalin habeenkiina barafka ka dada maalintiina cadceedda u yara dhigo la yaaca dhirta bal haddaba innaguna inaynu isku tashano in damiirkeenu shaqeeyo in maskaxdeenu shaqeyso in aynu gaadhno inaynu ku filaan karno wadankeena inaynu khudradda soo saari karno inaynu baradhada beeran karno inaynu tamaandhada beeran karno inaynu la soo bixi karno wixii ay nafteenu ku noolaan lahayd ummadana aynu ugu tari lahayn waa in dalka wax laga beero dhulkii wax laga beeray waa la hayaa marka xukuumadda waxaan uga baahanay wasaaradda beeraha uga baahanay in dhulka samayso maxay tahay maalgelin samayso wasaaradda biyaha iyo khayraadkana ay biyo joojin sameeyaan oo beeraha u joojiyaan biyaha dhaafay u joojiyaan Soomaaliland way isku filan tahay cambabayga baa irmaan saytuunka baa irmaan limacaanti baa irmaan tamaandhada baa irmaan linaanti baa irmaan wixii wax shaamka baa irmaan wax walba waa loo baahay halkii baradhadana kuusa soo gasho ka irmaan beeraha marka waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland wasaaradda beeraha dhiirigeliso wasaaraddu waxa qabato sida wasaaradaha kale waa u shaqeysa wasaaradda kale Soomaaliland u shaqeeyaan